بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegeystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhegeysanayo halkani waa codka Soomaalida Finland SSM oo goorahan kale aad uga barateen inaanu idiin soo tabino wararkii viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale aan ku horeyno dalka Finland maanta oo Arbaca waxa sida ay sheegtay hay'adda THL ee caafimaadka iyo nolol wanaagga laga helay dalka Finland 420 qof oo hor leh oo qaba viruska corona taasoo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland ka dhigaysa 25,882 qof. Waxa ugu badan meelaha viruska laga helay gobolkan Helsinki iyo Uusimaa oo laga helay 256 qof. Kaalinta labaadna waa gobolka Varsinais-Suomi oo 28 qof ah iyo kaalinta saddexaad oo ku jira gobolka Pirkanmaa oo isagana laga helay 28 qof. Magaalooyinka ugu badan waxa ay kala yihiin sida tan: Helsinki 130, Vantaa 53, Espoo 41, Oulu 20, Tampere 15, Turku 14, Lahti 12, Karvia 9, Kouvola 7. Nurmijärvi ja Kerava, Jyväskylä, Rautalampi iyo Pieksämäki min 5 qof ayaa laga helay. Kangasniemi iyo Honkajokina midiiba 4 qof ayaa labada magaalo laga helay. xanuunka viruska corona awgiis waxaa isbitaalka ugu jira 165 qof sida ay sheegtay hay'adda THL iyadoo dhowr iyo 20 qof oo horle ay ku soo darsameen tiradii Isniinta. 165taas 21 ka mid ah waxa ay ku jiraan qaybta xaaladda aadka u daran. waxaana qaybtaasi Isniintii kadib ku soo kordhay 3 qof sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaaggana. Maanta waxaa dalkan Finland xanuunka viruska corona awgiis u dhintay 9 qof oo hor leh taasoo tirada dhimashada ee viruska corona awgiis tan iyo intii cudurka safmarka oo ka bilowday Finland ka dhigaysa 408 qof. iyadoo dagaalka lagula jiro viruska corona haatan aad moodo in hal tallaabo kor loo qaaday kadib markii dowladda Ingiriisku ay shaaca ka qaaday in ay bilaabayso toddobaadka soo socda tallaalkii looga hortagayo viruska corona ayaa dowladda dalkan Finland haatan waxa ay guda gashay qorsheynta umuraha tallaalka. Ra'iisul wasaaraha dalka Finland Sanna Marin iyo xukuumadeeda ayaa haatan wada hadal ku leh aqalka la yiraahdo Satu Talo ay dowladdu ku shirto. waxaana waxyaabaha ay ka hadlayaan maanta ka mid ah mabaadi'da guud ee la xiriirta tallaalka iyo sida la yeeli doono iyo qaabka loo kala hormarin doono dadka. weli lama oga sida ay dowladdu u nidaamin doonto ama dadka loo kala hormarin doono qaabka tallaalka waxaana ay ku xiran tahay bay tiri hadba sida uu dhaqso ugu yimaado tallaalku dalkan Finland. Waxaa ra'iisul wasaaruhu ay sheegtay in marka ugu horeysa ururka midowga Yurub uu dalbado isla markaana ogolaanshaha uu bixiyo annaguna markaa bay tiri ayaanu heli doonaa. wasiirka maaliyadda ee dalkan Finland Matti Vanhanen ayaa isaguna waxa uu sheegay in dowladdiisu ay tallaalka u diyaarisay lacag dhan 200 milyan oo euro. haddii loo baahdana intaa ka badan waa loo helayaa. mana aha buu yiri arrinka tallaalka mid ku xiran wax lacag ah ee waa arrin muhiim ah oo ay tahay in dadka laga tallaalo xanuunka viruska corona. maamulka magaalada Turku ayaa shir ay maanta yeesheen waxa ay ku go'aamiyeen in xadayn lagu soo rogo adeegyadii magaaladu ay bixin jirtay sida ay ku taliyeen kooxda isku duwidda ka hortagga arrimaha viruska corona ee gobolkaasi. waxaana xadayntaasi ay socon doontaa muddo 3 toddobaad. xadaymahaasi ayaa si ballaaran u saameyn doona adeegyadii guud ee magaaladu bixin jirtay. arrinka ku saabsan dugsiyada hoose iyo xanaanooyinka sidii shalayba la sheegay caadi bay u socon doonaan, hase yeeshee dugsiyada sare iyo macaahidda ayaa waxaa loo wareejiyey laga bilaabo maalintii shalay ahayd dhinaca internetka. dhakhtarka sare ee qaabilsan arrimaha cudurrada faafa ee magaalada Turku Jutta Peltoniemi ayaa waxa uu sheegay in xaaladda viruska corona ee Turku ay maalmahan aad uga soo daraysay. tusaale ahaan wuxuu yiri 23 ilaa 29 bishii la soo dhaafay waxa magaalada Turku laga helay 76 qof oo qaba viruska corona. waxa uu dadweynaha reer Turku Mr. Peltoniemi uu ku booriyay in muddada 3 toddobaad ee soo socota qof walba uu fasaxa ku qaato nolol xadaysan oo aan la talax tagin. waxaana ay ku xiran tahay buu yiri hadba sida aanu 3 toddobaad u dhaqanno in markaasi xadaymahaasi la khafiifiyo amaba haddii aan si fiican u dhaqmi weynana la sii adkeeyo.
wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada ee dalkan Finland ayaa laga bilaabo maanta fariimo ay kaga digayso xaaladda fayruska corona ee soo xumaanaya waxa ay u diri doontaa dadweynaha reer Finland. wasaaraddu waxa ay fariimahaasi ay ku boorinaysaa dadka inay u hoggaansamaan tala soo jeedinta ee xadeemaha dowladda iyo howlwadanada caafimaadku ay bixinayaan si markaasi loo joojiyo xanuunka safmarka ee sida ba'an u faafaya. waxaa fariimahaasi waxyaabaha ay ka kooban yihiin ka mid ah wasaaradda caafimaadka arrimaha bulshadu waxa ay kula socodsiinaysaa in xaaladda fayruska corona ee dalkan Finland ay soo adkaanayso. ilaali naftaada iyo tan dadka kale. markastana iska hubi gobolka aad joogto iyo goobta aad joogto talooyinka la soo jeediyey iyo xadeemaha lagu soo jeediyey in aad raacdo. wasaaradda ayaa arrinkani kala heshiisay shirkadaha telefoonka iyo qaybta emergency-ga ama xaaladaha degdega ah iyadoo ay u gudbinayso fariimahaasi. waxaana fariimahaasi lagu soo diri doonaa luqadaha Finishka, Swedishka, Ingiriiska iyo luqadda waqooyiga looga hadlaya Saamiga loo yaqaan. haatanna wararkii caalamka. dalka Austria ayaa waxa uu qaadi doonaa maalmaha soo socda ololo weyn oo lagu baarayo dadka isla markaana la siinayo fursad inay iska baaraan fayruska corona. caasimadda dalkaasi weyn ayaa waxaa laga bilaabi doonaa 4 ilaa 12 in dadweynaha wixii 6 sano ka weyn la siin doono baaritaan lacag la'aan ah oo ay iska baarayaan fayruska corona. waxaa baaritaankaasi loo sameynayaa ama dowladda ay uga leedahay in dadka laga helo fayruska corona ay fursad u helaan in ay galaan karantiilka 10 maalmood ka hor intaanay imaanin xafladaha soo socda ee ciidaha Christmaska ee sanadka cusub ee dalalkaasi aadka looga qadariyo. dalka Austria ayaa waxaa ilaa iminka laga helay fayruska corona in ka badan 285,000 oo qof iyadoo dhimashaduna ay marayso 3,325. dowladda dalka Ingiriiska ayaa ogolaanshihii isticmaalka tallaalka fayruska corona looga hortagayo waxa ay siisay sharikadaha daawada ee Pfizer iyo BioNTech oo iyagu dhawaan soo saaray tallaalka fayruska corona. tallaalkaasi ayaa la sheegay in toddobaadka soo socda Ingiriiska la keeni doono. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Ingiriiska Matt Hancock ayaa waxa uu sheegay in hawsha tallaalku ay ka bilaaban doonto dalkaasi Ingiriiska toddobaadka soo socda. Hancock waxa uu sheegay ilaa 50 isbitaal oo ku kala yaala Ingiriiska daafihiisa in tallaalkaasi la geyn doono. sidaas oo kale waxa uu yiri waxa intaa dheer oo isla markaa ay dowladdu aasaasi doontaa xarumo gaar ah oo tallaalkaasi laga fuliyo. dowladda Ingiriiska ayaa waxa ay dalbatay 20 milyan oo tallaal iyadoo qof walba la siin doono 2 tallaal oo ay u dhaxayso 3 toddobaad. waxaa la sheegay in sida loo kala horeeyo ay tahay in lagu horumarin doono dadka waayeelka ee guryaha la xanaaneeyo ku jira iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee iyaga haya. waxaana ku xigi doona markaasi dadweynaha ama dadka waayeelka ah. sidaasi ayay dowladdu markaa u qorshaysay in qaabkaas dadka tallaalka loo kala siiyo. dalka Mareykankana tiradii dhimashada ugu badnayd ayaa laga soo warinayaa kadib markii 24 saac ee lasoo dhaafay ay dalkaasi fayruska corona awgiis u dhinteen in ka badan 2,500. sidaasina waxaa sheegtay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa jaamacadda Johns Hopkins ee iyadu hawshan koronaha dabagasha. waxaana la sheegay in dhimashadaasi ahayd tii ugu badnayd ee soo marta maalmahan oo dalka Mareykanka xaaladiisa fayruska corona ay aad uga soo daraysay. isku darka guud dadka uga dhintay Mareykanka fayruska corona awgiis waxaa sida Johns Hopkins jaamacadda la yiraahdo ay sheegtay ay marayaan 270,000 oo qof. sidoo kale waxaa Mareykanka haatan xanuunka awgiis isbitaal ugu jira 90,000 oo qof iyadoo tirada dadka uu ku dhaca maalin kasta 180,000 ay kor u dhaafayso maalmaha qaarkoodna 200,000 ay gaarto. isku darka guud ayaa Mareykanku waxa haatan uu sii maraya 14 milyan oo qof oo ku dhacay fayruska corona. dalka Mareykanka ayaa ah dalka tiro ahaan ugu badan dhinaca faafista fayruska iyo dhinaca dhimashada labadaba. gobolka Florida ayaa isaguna haatan waxa uu dhaafay tirada 1 milyan. sidaasina waxaa sheegay telefishinada wararka ee CNN iyo CBS. waxaa gobolkaasi talaadadii oo qura laga helay in ka badan 8,800 oo qof oo hor leh oo fayruska uu ku dhacay. waxaa hore 1 milyan u dhaafay gobolada Texas iyo California. Sweden oo iyadana xaaladeedu haatan ay aad uga soo darayso ayaa waxaa 24 saac la soo dhaafay laga helay fayruska corona 5,400 oo qof iyadoo ay u dhinteen 174 qof.
tirada dhimashada iyo tirada dadka laga helayo viruska corona ayaa wixii ka dambeeyay 19 bishii lasoo dhaafayba ay dalkaasi Sweden aad isu soo taraysay, waxaana mararka qaarkood laga helayay tiro aad u badan oo aan marnaba soo marin tan iyo intii xanuunka safmarka uu ka bilowday dalkaasi Sweden. isku darka guud ayaa dadka laga helay viruska corona ee Sweden waxa ay marayaan 266,000. sidoo kale dhimashada ayaa waxa ay maraysaa 6,972. xaaladda adduunka markaynu eegno qaaradda Yurub 18,411,059 qof ayuu ku dhacay virusku, waxaana u dhintay 419,786. adduunka dadka uu viruska ku dhacay haatan ku sii dhow 64 milyan, dhimashaduna waxa ay ku dhowdahay 1,500,000. dalalka haatan ugu daran dalka Poland ayaa isagu haatan 1 milyan waxa uga dhiman 108 qof oo kaliya, iyadoo 24 saac ee soo socda dalka Poland oo hal jaranjaro kor u fuuli doono isla markaana uu ku biiri doono bahda 1 milyan ee tirada dadka laga helay viruska corona oo ilaa iyo 12 dal ah oo uu ku noqon doono dalka 13aad. Poland 24 saac la soo dhaafay waxa viruska laga helay 9,073 qof, waxaana haatan tirada guud ay maraysaa 999,892 qof. 108 kaliya ayaa ka dhiman, dabcan 108daasna 24 saac ee soo socda ayay buuxsami doontaa. waxaa Poland xanuunka u dhintay 449 qof, tirada dhimashaduna haatan waxay maraysaa 17,599 qof. wararkii viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale, dhageystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhageysanayo, inta ayaan kusoo koobaynaa. inta aanan ka bixin waa dardaarankeennii aan had iyo goor isu dardaarmi jirnay inta barnaamijka uusan dhammaan. dardaarankaasi oo ku saabsan in loo hoggaansamo qof walbaana uu qaato talooyinka ay dowladdu ay bixinayso. maxaa yeelay marka aad u hoggaansanto talooyinka la bixinayo ayaa qofku uu badbaadayaa, bulshaduna ay badbaadaysaa. isticmaal afshareerka, ku dadaal kala fogaanshaha, u jirso masaafo dhan 1 ilaa 2 mitir dadka kale. mar walba gacmaha iska dhaq, isticmaalna jeermis dilaha. marka aad qufacayso sida wanaagsan u qufac oo ah in aad cududaada soo laabto haddii aadan waraaqda sanka haysan oo aad afkaaga daboosho. adigoo xanuunsan ha aadin shaqada, iskuulka iyo meelaha kale. haddaad isku aragto astaamaha xanuunka haba yaraadaane, horey waxaad ka aadaa baarista viruska corona adigoo gelaya bogga internetka oma.olo.fi ama coronaboti.fi. halkaas ayaad astaamaha ku haya u sheegaysaa, kadibna halkaasaa laga hagi doonaa, ama waxaad wacaysaa taleefanada loogu talagalay ee magaalada aad degan tahay. 3 toddobaad ee soo socota waad ujeedaan xaaladdu ay ka soo daraysaa. goboladii dalka oo dhanna virusku waa uu saameeyey. ha la iska ilaaliyo isu socodka iyo isdhexgalka iyo socodka faraha badan. maxaa yeelay ujeedada 3 toddobaad wax loo kala xayiraya waxa weeye in la hakiyo faafista viruska. waxaa la ogaaday meelaha ugu badan ee lagu kala qaaday inay tahay isu imaatinka iyo socodka guryaha dhexdooda ah. sidaa darteed 3 toddobaad ee xaaladdu khatarta ay tahay, gurigaaga ku jir oo ha ka bixi. iska ilaali in aad cid kale dhibaato u geyso. haddii aad karantiil tahay, ku jir karantiilkaaga. haddaad go'doon tahayna ku jir go'doonkaaga ilaa amarka lagu siiyo. haddii xanuunku kugu dhaco, waxba ha ka baqina, dhakhtarka la xiriir oo la socodsiya xaaladaada. waa lagu wareysanayaa. haddii aad caawimaad u baahan tahayna waa lagu siinayaa. haddii xanuunka lagaa helo oo lagu weydiiyo meeshii aad tagtay iyo ciddii aad la joogtay, waxba ha qarinina, u sheeg, wax dhiba ma lahan. adiga cid ku sheegaysa maloo ku oranaysa hebel baa noo kaa sheegay, laakiin ujeedadu waxay tahay si cudurka faafistiisa looga hortago oo dadkii loo xayiro si aanay xanuunka isu faafin. arrimahaasoo dhan waa arrimaha keenaya in aanu ku dadaalno ama maqalno talooyinka dowladdu ay noo soo jeedinayso. daryeel naftaada, tan dadkaaga iyo tan ehelkaaga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa codka Soomaalida Finland SSM oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo.